الرحيم waxaa halkan isugu yimi guddiga jaaliyadda KDO ee Minneapolis Minnesota iyadoo xafladda maanta ama shirkan kalfadhiga nagala soo qayb galay wasaaradda Faarax oo ka yimi state kale Oregon USA arrimahan halkan kaga hadlaynay waxaa ka mid ah sida caadiga ahayd baa kala warqaadashadii guddiga iyadoo shir gudoomiyaheena Cabdirashiid Xambuuse iyo xubnaha iyaga kala guddiga kala warqaadasho ka bacdi waxaan isla garanay inaanu taageero koob bayaankii ay soo saareen ama heshiiskii dhex maray safgaradka dhex maray labada maamul ee Somaliland iyo Khartoum annagoo u daba fadhina kuna taageersan maamulka iyaga kuna dhiirigelinayna inay ku sii socdaan una dirayna ama ugu baaqayna dadweynaha iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka inay wax kasta iyo qayb kasta ka qaadan karaan ka qaataan annagoo taageerayna dadkii is-abaabulay sida deegaanada Ceerigaabo Arboogeys iyo meelaha kale la midka haddana waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay Cabdicasiis oo dhinaca bidixga fadhiya بسم الله الرحمن الرحيم مدشان قروح البدن ومدشي KDO جديدة مع نصارى سيدي صاحب كي عادل مختار حسن بيل شيخي وحنا أفردنا تاجر بده وأنا في تاجر إنه ولا هذا الكاس يس أفكارات كاس السعودة لوضع معمول خارطوم ستيت أوف سوماليا iyo maamulkaas Somaliland hawshaas ay wadaan waxaanu ku taageernaa cod mug leh annagoo ku hadlana codkii guddida Minnesota aad iyo aad baan taageersanahay bulshada Soomaaliyeed iyo midda Khartoum iyo dhammaan midda reer waqooyi waxaan ku boorinaynaa inay hawshaas adkeeyaan oo laga miro dhaliyo oo loo soo joogsado oo tubta khayrka Ilaahayna waafajiyo wabillahi tawfiiq haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha iyaga Cabdirashiid Xambuuse welcome gudoomiye aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Shire Mukhtaar Xasan Deyl iyo dhammaan guddiga sharafta leh ee caawa halka isugu yimi odayaasha gabdhaha dhalinyarada kale aad baad u mahadsantihiin dhammaan waxaan salaamayaa ummadda reer Khartoum meel kasta ay joogto iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan u rajaynayaa wanaag iyo guul si kastaba xarxad kasta ku shireenay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu halganka Khartoum ay ku soo jirtay muddada dheer ay wali ku sii socdo ay heshiiska iyo wada hadalka ay is-afgaradka ay la samaysay Somaliland dawladda ka jirta oo dadka in la walaaleeyo la mideeyo la wada shaqeeyo nabadgelyada la wada adkaysto wixii khilaafay jirana meesha laga saaro waxa weeyaan waxaan leeyahay waxaan ugu hambalyeeyaa madaxdaas go'aanka geesnimada ay isla qaateen halkaana horaha uga sii wadeen codkayaga iyo waad haysataan iyo taageeradii aad naga filayseenba aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa Faisal oo isna ah golayaasha guddiga Khartoum ee Minnesota بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan hambaliyay bogaadin ugu diray dhamaan meel kasta oo joogan maamulka Khartoum iyo shacabkiisaba marka waxaan leeyahay maantaan waxaan ku taageersanahay halkan aan isugu nimid inaan ku taageersanahay maamulka Khartoum ee state ka Minnesota inuu ku taageersanahay wax kasta oo mabda oo noqada ama mowqif oo noo soo jeediyo waana ku garab taaganahay hawlaha ka socda Khartoum iyo Somaliland marka taageeradaydan muujinaya saay fi amaan Allah dhamaantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت واحد شرفي إلهينا نقوم هذينا يا جاليدا ريمني صورة قاتمينا يجو شركة شراء كلا قد قال شركني شركنا بوحدة قرينة مع هين واحد بدأ يالوها مر ولي بلو قلت لك ليه ري قاتمنا ويوجينو ما أنت قاتمو مقع يجا سمستي حكومة قاتمو يو مامل كسوماليلاند وهذا
baa u dhaxeeyay wada hadalkaasu waa heshiis weli aanan weli qalinka lagu dhufan laakiin heshiis hordhaca waa la gaaray waxaan sida aadka aan u taageeraynaa maamulkeennii aynu u daba fadhiisanaynaa meesha maanta uu ina gaadhsiiyey baanu u daba fadhiisanaynaa wanaaggeedii iyo sharafteeda ay leedahay hadday tahay in maamulkii Khaatumo State of Soomaaliya iyo maamulkan Somaliland ay ku wada heshiiyaan xitaa magaca iyagu ay doonayaan qaabkay doonaan baa u dhigaane maamulka iyagu waanu daba fadhiisanaynaa waanu taageeraynaa jaaliyadana way ku mahadsan yihiin sida maantan ay ii soo dhaweeyeen aniguna codkayga waxaan ku soo jeedinayaa weliba iyo jaaliyadda aan matalayo in aan jaaliyadda reer Minnesota aan kala qayb galay misana magac ahaan iyo jaaliyad ahaanna aan u taageernay waanu taageersannahay maamulkeena Khaatumo State of Soomaaliya hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto ra'iisul baarlamaan hadday noqoto madaxweyne xigeen intaba waanu taageersannahay kaliya waxaan halkan kelmad aan ka oran lahaa kelmadda waxa weeye maamulka Khaatumo State of Soomaaliya waa maamul jira oo la xaqiijiyay maamulkiisii jiritaankiisii constitutionkiisii iyo kala dambeyntiisii maamulka Khaatumo State of Soomaaliya uma tali karo nin u daba fadhiisanaya maamul kale ama ma hogaamin karo nin doonaya inuu meel kale hadalkiisa u dhigo ama doonaya nin maamulka inuu burburiyo ugu talagalay maamulka ka mid ma aha waxna ma oran karo Minnesota aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya waadna mahadsantihiin Khaatumo guul Khaatumo State of Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هذا العبديري aniga cabdiyara la yiraahdaa cabdi muusana waa la yiraahdaa odayaashaan anu ka mid ahay Khaatumo ee Minnesota maanta taariikhdu waa bishii 7 oo 4 waxa weeye horta sideedaba waxa khaldamayn ma jiro maamulka markii la sameeyay anigu markii aan eegay hal mid uu ku khaldamay markii la yiri odayaasha magacooda garaadada isimada markii la yiri waxa loo waa gudida u sarreysa weeye horta markaas la khaldamay waxa lagu khaldamay dawlad ama maamul baa dad la xisaabtamay isim lama xisaabtamo waxaan u malaynayaa kala baabeeni iyo wixii oo kala maqnaa wuxuun hayri galeen bay ahayd oo mara maslaxad baa la moodi horta maamul ya madax bannaan wixii uu la hadlayo ama dawlad habbuura hadday tahay ama maamul tahay sidii anagu aanu arki jiray yaa la xisaabtama dawladee dad lama xisaabtamo shicbi iyo qabiil toona lama xisaabtamo kuwa iminka aad la xisaabtamaysaana maamulka ay la xisaabtamayo oo cid kale qabiil imaan maayo isimna imaan maayo anagu waxaanu taageersanahay maamulka iyadii Khaatumo waxaanu ku kalsoonahay waxaan noo cutamin inay keenayn waad ku garab taaganahay haddaanu jaaliyadaanahay waqtiga aan sheegay baanu sunnimid odayaal iyo gabdho iyo dhalinyaro iyo guddi waa dhannahay dawladna iyo maamulla wax turuntureeya ama mucaarada la waayi maayo kuwo badan oo awil aynu Khaatumo moodaynay meelo kale u kaceen waxay ka dhaxlaan bay heli doonaan annagu inta yada joogna ee Khaatumo ah Khaatumada yadii baan ku taageersanahay way ku kalsoonahay madaxweynaha iyo wasiirada iyo xukuumadda iyo ra'iis baarlamaanka waxa weeye inaad wax maartay ka tageysaan u malayn mayno waxa aynu doonaynana waa garanaysaan waxba idin fari mayno annagu arrintaas aanu ku garab taaganahay taageersanahay codka iyaga waa haysataan iyo taageerada waa ka baxay anigu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد شركة إيجالية دارك سكوت والسلامية سلام كبعدي شركة وحال سويمي اسحب رئيسي iyo taageero la
taageerayo maamulka khaatumo ee daafaha kala jira iyo maamulkiisa yaa la taageerayaa waxaanu taageersanahay shirka guddida iyo madaxda khaatumo yaanu taageersanahay waxaanu taageersanahay kalsoonina ku qabnaa dad mas-uula oo miisaan leh oo aanan dareensanayn waxaan sool iyo sanaag iyo cayn u cuntamay niman keenaya inay ahayn baanu ku taageersanahay horena waanu idiin taageeray taageeradii xigana inaanan cidna kala gabanayn taageerada iyadaanu idinku sheegnay maantana waanu idin leenahay dad badan baa faylgaroobay oo ku faylgaroobay midnimadii dhulbahanta iyo raadintoodii dad badan baa ku faylgaroobay marka idinku waxaan tuhmayaa masiirka dhulbahante nimankii ka turjumay lahaa inaad tihiin wixii aad keentaana kalsooni baanu ku qabnaa wixii aad guddoomisaana waydu ku kalsoonahay waana idinku garab taagna asalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم مقعيبه علي اسماعيل ابراهيم لو يقان علي صوفي waxaan taageerayaa oo marka horeysa aan ahay waan cadaynayaa inaan khaatumo ahay taageersanahay qofkaaba labada qof ee ugu dambeeya aan noqon doono magaca khaatumo aan weligii taageersanaan doono taasi waa taageerada khaatumo waxaan kaloo taageersano si waxaan u soo dhaweynayaa wadahadalka u furmay dhowrka marxaladood soo maray somalilan iyo khaatumo u furmay waa soo dhaweynayaa waa taageersanahay waxa weeye waa hordhac waxaa soo baxay go-aanadii u dambeeyey maaha waxaa ku talin lahaa war aynu sugno dadkii aynu wasiirka u dooranay wadahadal bay galeen dad iyaga dhigoodaabay la galeen dhinacii kale qayla kama yeedhayso way aaminsan yihiin dadkoodii dadku ay u dhiibteen waxay u dhiibteen inana aynu ku weyna aamino aynu sugno hala xoojiyo ha laga qayb galo wixii hala sugo xilligaa isaga ah la sugu tarayo shirkaa marka u dambaysa ee masiir yimaado halkaas wixii ka soo baxayeen wax ka sheegi karnaa laakiin wada hadal soconaya iyaynaa ka hordhicin iyaynaa cambaarayn aynu iska dayno xashaashiga iyo xasanadda ciwadan ahayn intaa ayaa hadalka anugu kaga baxayaa waana salaamantii عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي كل يميدي هو الشقانان وأوضح علل waxaan halkan isugu nimid jaaliyada Manisoora anagoo ah kuna hadlayna magaca Manisoora kana mid ah KDO da ka dhaxaysa adduunka oo dhan xiriirka gudiyada Manisoora iyo dadka ay ka go'do birmageydada ka mid yihiin waayeelka waxgaradka marjaca loo celiyo maamulka qaatumo ee magaalada waxaan halkan maanta isaga nimid inaan taageero masiirka laga hadlayo ee ay ka wada hadlayaan magaalada Woodward ergada isaga timi oo madaxweynaha ku hayo halka inuu ku falanqeeyo shantii qodob uu ka soo qaaday wada hadalka Soomaaliland iyo qaatumo waanu taageeraynaa haddaynu nahay guddi waliba anigoo ku hadlaya magaca jaaliyada Manisoora ee taageerta maamulka qaatumo hadda ma aha mucaarad kuma hadlay waxaan tacsi u dirayaa hadda waxaan tacsi u dirayaa naxdin leh dadka tabarta yar waxay diidan yihiin iyo waxay doonayaan aan la kala garanayn war safaaradii baanu aragnay waa la duuduubay naxash baanu ku tuurnay war bah baa soo baxday bah caashalada maalin cad baanu aasnay war hadda kuwa hadda hadlaya ee hardamaya war waa kuwaan guddiga 21 ka isla soo ahay ee wanday qaatuba aan lacag ku bixin ee wanday maalintay hargeysa tageen soo noqdeen nugula soo noqday war siilaayaan jeclahay cali ma arki karo ninkii maalinta taa ay ula soo noqdaa haddana wuxuu idhahayaa masiirka dadkan ka hadlaya war anoo dumara aqligaygu saa uma shaqeeyo adoo rag iska badaay anoo dumara isma rogrogi karo hargeysana waa tagaysaa guddoomiyana waa dhii ahay siilaayana waa jeceshahay calina waa diidaya war adeerow bal isku noqo maantana waxaad ka hadlaysaa masiir horta tacsidaasna adinkaan idiin dirayaa dadkan ma aragta qoladan waxaan oranayaa reer Manisoora digniin baan idin siinayaa digniinteedu maxay tahay war yaan idin hodin
ninaan idin hargaynayn yuusan idin hodin ninaan waxba idin hambaynayna yuusan idin hodin waxaan inoo ballana dadka nadiifka ee aqliga saaxiibka u ah maamulka qaatumo iyo masiirkiisa in loo daba fadhiisto madaxweynaha kabineedkiisa aynu u igmanay waxaynu nahay dad dawlada waxaan noo qalmina noo soo qaadi maayo anaa qaba cid walbaa qabta nin xanuunsanse ma qabataa nin xanuunsan dawuu rabaayo ma qabo war haddaynu idinka uuminayna cali imaada annagaa idinka uuminayna haddaad qaatumo diidan tihiinna annagaa idinku shubayna imaada laakiin markaad wax diidayso waxaad ku bedelata ka waxbaan diidayaa keliya lama rabe waxaad ku bedelata wixii aad diiday noo keena qolyaha mucaaradka tacsidaasaan idiin soo dirayaa waa fiifa qaatumo fiifa qaatumo fiifa qaatumo الرحمن الرحيم مقعي وسار حسن فارح سلطان أبو دريس أنا وقاضي عدك شرية من الصوتو عدك شرية كيليو عدك مدرسة طيو وعن هذا نكسو تشيدين إياه وأنا كو قبرنا باب بوحة وأنا كو تاجرينه ماملك خاطبه ومدحوينها وياي بروفيسور علي خليفة قراي ودوميها برلمانكا قراها برلمانكا وليس وزير هذا إلا أيام مالنتي حلك اللودي بي للنجيي النجادي يكون نجادي الكودي وأنا تاجر سنة هاي ولا هذا الكا لوضع معمول يا خاتم السيد الصومالية هي الصومالية si buuxda ayaan u taageersannahay si buuxda ayaan u taageeraynaa waxaan leeyahay waan u sheegayaa ummaddan kale ee walahawgu ku waashay farasow dababcahaaga iyo kudlahaaga isilso war maxay mucaaradan waxba ma soo bixin lamaba heshiina maxay mucaarada ma magacyada la mucaaradaya lamaba heshiin heshiis ma dhicin wax lama kala qoran wax lama kala goosan layskuma biirin bal waxbay mucaaradayaan maxay mucaaradayaan bal dadka u sheegeen waxay mucaaradayaan daysa mucaaradeen maxay u hayaan ummadda ee ay u waalayaan waxbaan mucaarada af soomaali maaha waxbaan diidayna af soomaali maaha waxaad ku diidaya waxaad ku bedeli lahayd oo wada socdo noo keen nimankan baan sheegayaa hadda waxaan arkayay niman la geeyey hargeysa la geeyey sidii ahminkii loo dhoofi jiray carabaha sacuudiga oo kolba meel loo kaxeeyo nimankaa ismada ee koofiyadaha sitaa waxay isin u ahaayeen dhaqan iyo geed hoostii siyaasad iyo masiir umadeed iyo maamul iyo hawl kale hawlu taalla maaha geedka raaska doonto inuu geedu fadhiistaa loo idmado siyaasaddana siyaasi baa loo ogaa siyaasaddana siyaasi baa loo ogolaa iyagana geed baa madarayaalow tii laydiin doortay baa dayacan oo rag kale oo shisheeyihii ku jiraan yaa waacid nafsak qofka aad rabtid inuu qofka wax sheegayo naftaada marka hore wax u sheegay markaad tiina ka soo baxdaan siyaasadu soo gudba ha idin qaadeen guryihiin nin qura oo gurigiisii ka soo toosay kuma jiro nin qura oo gurigiisii ka warhayaa ma jiro guryahoodii baynay war u haynin maasay leeyihiin haa rag baa noo yeedhay buntland baa noo yeedho maamul baa noo war buntland yay xukuntaa iyay matashaa buntland annagu idinkaa markii hore noogu geeya hayb iyo waxaanu eednay waanu ku khasaaray walaa farmaajaanna xukumin walaa buntland baana xukumin waxay soo dhisaan nama xukumaan habaanan mas-uula wax farmaajo iyo garowa lagu soo malmalooqina carra dhulbaanta la keenin kaasaanu dooranay oo dhisanay oo ku daba tukanayna wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay la tahay wixii hadala waxa dhameeyay dadkii qoriyahooda iga horeeyay hadal badanina waxba ma qabto waxay Soomaalidu ku maamulada hadal bilaale ma buuxiyo marka heshiiska hadalada ay wadaan khaatimo iyo Somaliland madaxweynaha baarlamaanka khaatimo boqolkiiba boqol baan barbar taaganahay kuna kalsoonahay
oo aanu taageeraynaa waxaana weeye meesha dad badan oo dhulbahantii ay leeyihiin ama kabaha u qaadayaan maamulka somaliland ama maamulka puntland waxa weeye anigu intii cabdiweli xukumi lahaa ama siilaayay xukumi lahaa waxaan leeyahay cali khaliifay xukumo ama ninkii dhulbahantay markaa masiirka ka talinaya madaxda ayaan ku kalsoonahay inuu xukumo nin kabaha meel kale u qaadaya waxaan qabaa inuu yahay nin nasabadiisii iliyey cid kastaba ahaado cumaamad ha sito caaqil ha noqdo wax kastaba ha ahaado waxa weeye in masiirka khaatumo lagu dhinto lagu dagaalamo arrintaana heshiiska la wado iyo afkaradka boqolkiiba boqol waanu ku kalsoonahay waanu barbar taagannahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdisaaq axmed hiire waxaan salaamayaa golaha khaatumo ee shirweynaha ah ee aanu isugu nimid ee aanu ku taageerayno maamulka khaatumo ay go-aanka ku qaateen in ay wixii loo idmaday ka soo baxaan waxaan taageero weyn u fidinayaa oo ilaa awal ilaa aakhir ilaa iyo hadda aan kula socdaa maamulkaygu go-aanka uu qaatay una daba taagnahay marnaba aan macnaha ku raacsanahay inuu u idman yahay wada hadal qof kasta oo soomaaliya uu la qaato الله وبركاته مقعد وحاوقاس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين halkan waxaan taageero buuxda ka siinayaa aan taageerayaa maamulkayga Khaatumo State of Soomaaliya runtii wixii hadal ahaa oo la oranayay waa la dhameeyay dadkii ugu horreeyay baa dhameeyay laakiin wuxuuna anigu aan leeyahay waxa weeye waxaan ugu baaqayaa dadka reer Khaatumo ama dadka u baahantay inay aaminaan waxa ay iyagu leeyihiin inay aaminaan waxa ay iyagu masiirkooda aaminaan inay aaminaan ninkay u doorteen dadkay iyo dadkay wax u dhiibteen waxa aad iyo aad aan uga xumahay inay tafaraaraq geliso maxaan ku rahdaa tafaraaraq geliyaan dad dana kale leejahiyadaha ama dadkii waxgaradka ahaa wax ku oolka ahaa oo maxaan ku rahdaa Khaatumo ahaa dhexaadkiisa waxaan se leeyahay oo aan ku faraxsanahay waxa weeyaan waxaan anagu leenahay baan u jeednaa wax nin kale leeyahay taageeri mayno mana taageeri doono cali khaliifna waxaan leeyahay iyo maamulkiisa war garbaha haddana ka horna waa kugu yiri garbahaagii baanu nahay maamulka raadaana ku xilsaaranay wixii aad noo keentana waa ku qanacsannahay waana kugu faraxsannahay waana ku garab taagannahay insha allahu biidnillaahna kugu qasaari mayne go ahead baan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa asli cali xaafoon anugu hadalka badin maayo wax buuran oo hadda dadkii hore uu ka tegayna ku dari maayo waxaan leeyahay annagu waa idin ayiidsannahay waana idin taageersannahay waana idinku kalsoonnahay waana idin garab taagannahay idinkana waxaanu idinka rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim kuwii hawsha loo igmaday ee lagu aaminay ee loo dirsaday ee Khaatumo magaca ah loogu bixiyay kuwii ka soo baxa ee meel ayidan oo hagaagsan oo asturan oo adaawilan oo asaagooda ay kala tartamaan kagana reeyaan kagana qayb qaataan kuwii ka soo baxaan ilaahay idinka rajaynaynaa salaamu calaykum assalaamu calaykum waxaan ahay Arda Axmed Aadan waxaan meeshan ka salaamayaa madashaan la isugu yimid ee sharafta leh waxaa kale oo salaamayaa maamulka naga Khaatumo oo ugu horeeyo madaxweyne cali khaliif galay waxaan ku leeyahay caliyow geyso weligaa gadaal ha marin hawshan annagaa ku idmanay annagaa ku xiranay annagaa kula jecel si wanaagsanna waad yeeshay waxaad samaysayna meeshan kagamaba sheekayn karo abaarkaaguna mid la gudi kara ma ahan waxaan ku leeyahay hawshan aan kugu idmanay horay ugu soco allahana kuu guuleeyo
goyn inna kama igalilay wabani malaka matagin gooni goosad baynago It's like